assalaamu calaykum. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa rusushiisa iyo ambiyadiisa u soo diray muhiimad aad u weyn, taasoo ah in ay dadka ugu soo yeeraan in ay rumeeyaan jiritaanka Alle subxaanahu wa tacaalaa iyo cibaadadiisa. maadaama inta badan dadku ay beenin jireen ambiyada, wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa ku ayidi jiray mucjisooyin muujinaya runsheegistooda. sidaasoo ay ahayd, haddana waxay ambiyadu la kulmi jireen ciqaab, iyagoo loo geysan jiray dhibaatooyin aad u waaweyn. ambiyadii ugu darnaa ee la isku dayay in la dhibaateeyana waxaa ka mid ahaa nebigeena Muxammad salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, gaar ahaanna markii rag ka mid ahaa kuwii ugu xoogga waaweynaa Quraysh ay ku kulmayn si ay u dilaan nebiga sallallahu calayhi wasallam isagoo dhex jiifa gurigiisa. wayamkuruuna wayamkurullaah wallaahu khayrulmaakiriin. waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa qisada iskudaygii iyo dhagartii la doonayay in lagu dilo nebigeena Muxammad salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. daawasho wacan. balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin janalka inaad sabskaraib saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. kadib markii Quraysh ay aragtay in dadku ay bilaabeen in ay ku qancaan islaamka iyo hadalka Nebi Muxammad sallallahu calayhi wasallam, iyo in tirada islaamka ay maalinba maalinka ka dambeeya ay sii badanaysay, ayaa waxay dareemeen in uu ku yahay halis aad u weyn. markaas baa waxaa kulan degdeg ah isugu yimid madaxdii hoggaaminaysay kufaartii Quraysh, iyagoo ku kulmay aqalka loo yaqaanay Daarun Nadwa oo looga arrimin jiray magaalada Mako. waxayna shirkooda ooga arrinsanayeen in ay helaan xal degdeg ah oo kama dambays ah oo looga takhallusi karo Nebi Muxammad sallallahu calayhi wasallam. markaas bay qaarkood soo jeediyeen in la sameeyo 3 arrin midkood, kuwaasoo kala ah in ay xiraan oo ay xabsiga dhigaan, ama in ay iska musaafuriyaan oo ay ka saaraan waddankooda, ama in ay dilaan oo ay ka takhallusaan. haddii ay xabsiga dhigaan oo ay xiraan, waxay ka baqeen in ay furan doonaan oo ay xorrayn doonaan dadkii rumeeyey ee raacay ee muslimiinta ahaa, oo sababtiisana ay u dhacaan dagaallo laga dhaxli karo cawaaqib xumo aanan la mahadin doonin. sidoo kale haddii ay ka saaraan waddankooda, waxay ka baqeen in dad badani ay raaci doonaan oo ay rumayn doonaan, oo uu sidaasna ku yeelan doono awood aad u weyn, taasoo sababi karta in uu Quraysh dib ugu soo laabto isagoo intaan ka awood badan oo aanan waxba laga qaban karin. dood iyo wadahadal dheer kadib, waxay isku raaceen in ay sameeyaan qodobkii 3aad, kaasoo ahaa in ay dilaan oo ay ka takhallusaan. balse yaa dili doona? dhagarweynidooda awgii, waxay soo jeediyeen in qabiil walba laga soo qaato hal qof oo xoog leh ama ka mid ah kuwa ugu xoogga badan qabiilkiisa, si ay hal mar u weeraraan nebiga sallallahu calayhi wasallam oo ay si isku mid ah u wada dilaan, si aanan loo helin qabiil gooni ah oo loo raacdo dhiiggiisa, oo sidaasna dhiiggiisa ugu dayacmo qabiilada dhexdooda, si ahalkiisa iyo bani Haashim aysan u helin cid ay u raacdaan dhiiggiisa, oo sidaasna ay ciqaab uga badbaadaan kuwii dili doona. markii la gaaray habeenkii lagu ballansanaa in dhagarta la fuliyo, ayaa waxaa hal mar meel isugu yimid 40 nin oo ka mid ah dadkii ugu xoogga badnaa carabta,
oo ka kala socday qabaa'iladii kala duwanaa ee carabta. kadibna waxay u jihaysteen gurigii nebiga sallallahu calayhi wasallam. markaas bay isku wareejiyeen gurigiisa oo albaabkana u fadhiisteen iyagoo kor ka weydaysanaya oo sugaya fursad munaasab ah oo ay kaga takhallusi karaan nebiga sallallahu calayhi wasallam. kadibna jibriil calayhi salaam ayaa ku soo degay nebiga sallallahu calayhi wasallam oo u sheegay dhagartii ay kufaartu la doonayeen. allena subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا محمد xus markii ay kuwa gaaloobay kuu qorsheeyeen in ay ku xiraan ama in ay ku dilaan ama in ay ku musaafuriyaan. iyagu dhagar bay degeen, allena dhagar buu degay, alle ayaana ugu aqoon badan inta wax dhagarta. wuxuu jibriil calayhi salaam nebiga sallallahu calayhi wasallam u sheegay in uu isla habeenkaas u hijroodo madiinatul munawwara oo uu caliy ibnu abi taalib allaha ka raali noqdee ku amro in uu habeenkaas jiifto booskiisa si uu ugu khiyaano kufaarta oo uu uga fashiliyo dhagartooda. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam u yeedhay caliyi oo ku yidhi: yaa caliyi, wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa caawa ii soo waxyooday in aan mako ka tago oo aan madiino u hijroodo. wuxuuna i faray in aan ku amro in aad jiifato booskayga si ay aniga ii kaamaleeyaan oo aysan u dareemin bixiddayda ilaa aan uga fogaado. adiguna maxaad ka leedahay yaa caliy? markaas buu caliyi ku yidhi: rasuulkii ilaahayow, ma ku badbaadaysaa haddaan booskaaga jiifto? markaas buu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi: haa, waan ku badbaadayaa yaa cali. markaas buu cali dhoola caddeeyey oo aad u farxay farxad aanan la qiyaasi karin, maxaa yeelay wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam u doortay in uu jiifto booskiisa si uu ugu qariyo maqnaashihiisa. markaas buu cali jiiftay booskii nebiga sallallahu calayhi wasallam oo go'iisana huwaday oo isaga qariyay madaxiisa ilaa iyo lugihiisa. kadibna kufaartii ayaa habeenkii gelinkiisa hore isku geedaamay nebiga sallallahu calayhi wasallam gurigiisa. markii la gaaray habeenbarkii ayay ku daaleen sugistiisa. markaas bay isdhaheen: hadda aan u galno oo aan soo dilno, cidnana ma arkaysee. markaas buu abulahab ku yidhi: waxaan sugaynaa ilaa iyo subixii si uusan u dhicin khalad aanan la mahadin cawaaqibtiisa. waxaa laga yaabaa inuu arrinkaas ula jeeday in dadku ay arkaan in dhammaan qabaa'iladu ay ka wada qayb qaateen dilka nebiga sallallahu calayhi wasallam si uu sidaasna dhiiggiisa ugu lumo dhexdooda. kadibna alle ayaa subxaanahu wa tacaalaa biqudratihi wada seexiyey dhammaantooda. sidaas ayayna rasuulka sallallahu calayhi wasallam ugu suura gashay in uu ka baxo guriga iyagoo hurda oo aanan arkin. wuxuuna nebigu sallallahu calayhi wasallam dushooda ku akhrinayay: wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim saddan faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun. waxaan hortooda iyo gadaashoodaba yeelnay saddi ama daah wax kala qariya, indhahoodana waan ka daboolnay oo ma arkaynin. ciid ayuuna ku fardhiyey sallallahu calayhi wasallam.
alle ayaa ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaalaa, wuxuuna sii watay socodkiisa. Markii subaxii la gaaray oo raggiina ay soo tooseen, ayay intay isku yimaadeen hal mar soo weerareen gurigii nebiga sallallahu calayhi wasallam. Kadibna albaabka ayay intay jibiyeen ayay gudaha u galeen. Waxayna arkeen nin firaashka ku jiifa, waxayna u maleeyeen in uu yahay nebiga sallallahu calayhi wasallam. Markaas bay ku hamiyeen in ay dilaan, balse mid ka mid ah ayaa go'i ka feeday madaxiisa si uu u hubiyo in uu isaga yahay. Markaas baa waxaa ku dhacday mufaaja'a aad u weyn iyo kedis. Ninkii ay xalay dhan korka ka ilaalshanayeen wuxuu noqday Cali ibn Abi Taalib karrama Allahu wajhah. Markaas buu Cali ku yidhi, muxuu yahay sha'nigiina oo maxaad doonaysaan? Markaas bay si caro leh ugu dhaheen, aaway Muxammad? Markaas buu ku yidhi, ma aniga ayaad waardiye igaga dhigteen? Maxaan ka ogahay meesha uu jiro? Markaas bay nimankii iska baxeen oo dib u laabteen iyagoo guuldarraystay oo dulaysan. Waxaana qabtay xanaaq iyo caro aad u weyn. Kadibna waxay madaxdii qabaa'ilada u sheegeen wixii dhacay. Markaas bay ku amreen in ay ka daba tagaan oo ay soo qabtaan ka hor inta uusan ka dheeraan. Markaas bay fardahooda fuuleen oo waddada isku sii daayeen si ay ugu daba tagaan oo ay soo qabtaan. Kadibna waxaa halkaas ka dhacday qiso kale oo aad u layaab badan oo aan horay uga soo hadalnay mid ka mid ah muuqaaladeenii hore. Waxaana qisadan qaybteeda xigta linkigeeda idiin soo dhigayaa muuqaalkan hoostiisa ama qaybta kommentiska. Waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin inaad like saarto oo aad u sii sheer garayso asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Hana iloobina inaad aragtiyadiina noogu reebtaan qaybta hoose ee kommentiska. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.